أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا دمان ومد برنامج هذا كعنا وعنك وأكوين كردهب أو إذن له ولا حوانو اسكو مكين هلاي ولا حوانو اسكو مكين هلاي وهرق قري حوانك وهرق قرمون وهرق حوق وحويه markay arkaan gabar Soomaaliyeed oo la isugu tagayo dagaalka ugu badan waxa qaada waa naagaha oo gabdhaha Soomaaliyeed dulma laakiin waxa idin sheega dulliga iyo dulmiga idinka wada in la idin dulaysto la idin dulmiyana idinka raali ka ah laakiin hal ba idin sheegaya naag walba maalin bay ayadoo dooman banaanka u soo baxdaa u soo galaysaa waxyaalaha aan idinku nixi waayay markaad u soo gashaan waa sababta keentay in aad gabar Soomaaliyeed u helin weyda taasa waxay keentay markaan idin arko idinkoo la idin dulmayo in aan tasaa idin fiiriyo aan idinka tago sababtaasa waxay keenaysaa waxaan idinku heli waayay waxaan idinka arki waayay horta anigu waxaan ahay gabadhii Soomaali ugu horeysay ee dhibaatadii aan igu soo dhacday yaraanteedii markay ka hadashay kulli la isugu tagay gaala wax siisa abtibay been ka sheegaysa been bay sheegaysa macallin ma waxaynin lacag bay ku soo qaadatay horta hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa caadil maadaama Ilaahay caadil yahayna wax kasta asaga banaanka keenay maanta ito qof Soomaali ah oo dhihi kara kufsi ma jiro abti wax ma kufsado adeer wax ma kufsado aaba wax ma kufsado walaal wax ma kufsado waxa weeye maanta qof Soomaali ah oo dhihi kara ama nin ha ahaado ama naag ahaado horta ma jiro laakiin haddana waxa socota nimankii falka galay markay kufsi maqlaan in ay social media ka dagaalamaan ayagoo difaacaya falkii ay galeen maanta Sacdiye arinteeda lama yaabin sababtaan ola yaabanay waxa weeye horta Sacdiyo ama gabdhaha la midka ah ama madaxa ahaadeen amba ha ahaadeen mas'uuliyiin ha ahaadeen ama mataqaanaayeeto public figure ha ahaadeen ama gabdho guryahooda joogo dhibaato ku soo dhacday ha ahaadeen horta waa goos around weeye maanta dhibaatada la idinku hayo waa midii shalayto markii aniga la igu hayay aniga Sacdiye u hiilinaya aniga waligeed Sacdiyo iima hiilin imana garab istaagin gabar kale oo siyaasadda ku jirtana iima hiilin imana garab istaagin gabdho Soomaaliyeed oo xoogaya oo dumarland aan la baxnay baa ii hiiliyay ayagiina sidii loo wada qalacayo loo wada dhibaataynayay ayay dhibaatadoodii markay ka badatay bay isaakay hareen kuwii kale oo cadowga lagu ahaaya oo ragga la socdayna dumar bay ahaayeen waxaan idin sheegayaa marka waxaad ogaataa dhibaatadii aniga shalay markaan baraha bulshada soo galay la igu hayay anigu waa ka baxa waan ka biskooday waa ogahay waxa jira daas waay baan maalmahan Sacdiyo ugu hiilinayay inaysan Sacdiyo gender ka hadlin ay ka hadashay caruurta iyo dulmiga iyo hooyooyinka lagu hayo inay ka hadashay baan Sacdiyo anigu codkeeda ka arkay Sacdiyo anigu kuma difaacayo inay mataqaanaayeeto difaacdo gender inay difaacdo inay Soomaali laakiin naagaha khafiifka ah oo daciifka ah ya nimankaani waxay difaacanayaan waxa weeyaan waxay galeen bay waxay rabaan inay difaacdaan marka gabar madax ah oo mas'uuliyad haysata lama ogola in ay ka hadasho kufsiga inay tiraahdo waa joojinaya because Sacdiye codkeedii waa aragnay warqadda qoraalka ah ee lala ordayo hoos ordaysa Sacdiye ma qoraal bay meesha ka akhriday mise Sacdiye codkeeday ku hadashay oo kaysay naag aan arkayay ee maskiinada ee meesha xilka haysa ee la soo fadhiday calaamaday qabtay ma arkaysay smoke baa la dhahaa taas oo kale finaaq xun oo ku jirta mataqaanaayeeto dawladda ya
weeyaan sacdiye mana gaarto mana u dhawaan karto masarka ay qabto raambow ma ku badan yahay mise kuma barna markaad maradaas waxaasoo kale ka hadlaysay oo aad sacdiye leedahay marada garabka u saaran waa calaamadii raam aad leedahay masarka marada kuu saaran madaxa marada kuu saaran maxay tahay maxay ka hadlaysaa ma leedahay calaamadaha sacdiye ku caayaysay maradaas ma leedahay mid kale oo qanjiro uu salahaydo ayaduna meesha ka hadlaysay ee iska cayishay iska barartay nacas ahna sacdiye waxay ku haysatay sacdiye inay been ku caayaysay sacdiye waxay ka hadashay waa caruurta iyo dumarka qof kasta oo qayliya iyo qof kasta oo bedelana dadka caqliga u saaxiibka ahi way garanayaan sacdiye waxa ay ka hadashay waxa ay tahayna way garanayaan laakiin kuwiina dameero dhaan raacdayga la dhaho nimankaani waxbayba difaacanayaan sacdiye waxaa nibcaa nabad iyo nolol bay gurigeedii ku yaalay madaxtooyo 2 sano geli weyda sacdiye habeen iyo maalin sheegi jirtay maalintii loo baahdayna sacdiye waa diiday inay raacdo nimankaas waa gartay sacdiye waxaa nicib reer abtigeed baa sacdiye nicib oo waxay ku nicib yihiin calanka 3 riigale oo Puntland 3 reer baa iskale bay ku nicib yihiin reer abtigeed sacdiye laakiin choicekeeda u hadashay inay waxa jira oo xaqa ah ka hadasho reer abtigeed waa nicib yahay sacdiye waxay ka hadashay wadaad ma ahan ninka aniga idifaaca waayay wadaad waa midka aniga idifaaca oo sharaftayda iyo cirdigayga ilaaliya oo dadka idilaya iga celiya kaasaa wadaad u aqaanaa marka rag badan oo wadaad ahayn baa jira sacdiye waxa lagu caysanayaa waa kelmadaas wadaadba haddii la taabto waran baa wadnaha lagaaga dhufanaya waxa weeye horta sacdiye dadka doqomada ah ee iska daba raaca ah ee dadka iska daba ordayana waxaa idiin sheegayaa sacdiye kama hadlin jinsi sacdiye mugdi kuma ay hadlinin meel public ah oo maxfar ah bay sacdiye ka hadasha meesha public ah waxay ka tirina wuxuu ahaa in ay tiri caruurta la kufsanayo iyo haweenka maanta laga bilaabo waa u dagaalamaya in la ansixiyana mooyaane waxa la iga diido in la ansixiyana muqdisho waa ka tagaya muqdisho dad baa isa siiya unukaa iska leh dad baa dhahaa muqdisho anigu horta muqdisho ma jeceli 1991kii waxaan muqdisho ku arkay baan anigu muqdisho ku naca soo waxaan kuu sheegayaa muqdisho haddaa adigu leedahay oo adigu aadan Soomaali u ogolayn waa taqaanaa unukaa iska leh dadka dhehe haddaadan Soomaali u ogolayn 4.5 maxaa muqdisho ugu ogolaata iyo in la isugu yimaado waa su'aal muqdisho qofka qabiilka qaadanaya magaalo madax u diidaya ha u diido dadka kale inay soo galaan muqdisho oo mataqaanaayeeto yaana soo gali ha dhaho laakiin madaxweyne unuka ah aan lahayn aan muqdisho ka noqdo madaxweyne marna madaxweyne unuka leh iska leh ayaa madaxweyne ka noqda marka waxa weeye waxa ay wadaan Soomaaliya iyo beenta iska gadaysaan kol anigu mid idin taqaanaa aan way yaqaanaa aniga warkaygu YouTube ku jira halkaasuu iigu jirayaa weligiis maanta kuwaan caqliga lahayn ee maanta dameero dhaan raacdayga berri markay caqli yeeshaan bay dhagaysanayaan YouTube-kay oo oranayaan waryaa way naga caqli badnay sacdiye codkeedu waa cod baraha bulshada yaala Universal TV baa duubay sacdiye hadaladeedii apologize-na ma ay bixinin ee waxay tiri wixii ay ka hadashay ayay micnaysay shirku wuxuu ahaa ayay micnaysay warqad calaamadii ku dhaganay darbiga ayay keentay dawladii waa la fadhidaa sacdiye kursigan ka kicinaynaa inaad dhahdaan baa la idin qaataa dadka iimaha loo yeelo waa taqaanaa Fahad Yaasiin baa idinka iimaha u yeelayay farmaajaad iimaha u yeelayseen oo daraad aad ahaydeen shalayna la lahaa waligiis xaaraan ma cunin daraadna aad lahaydeen maal buu dhacay wax buu xaday horta hore erayga beenta ahi meel ma gaaro qofkii tuuga waa tuug kii beelow waa beelow kii wanaagsan waa wanaagsan yahay kii xun waa xun yahay sacdiye waxaan arkay naaga leh waxaan u malaynaynaa inay tahay naagaha sacdiye gamarwo sharaf leh oo qiimo leh oo cod kar ah oo geesiyad ah weeyaan laakiin shalay markaan soo baxay hadday sacdiye iyo dumarka la midka ay garab istaagi lahaayeen maanta waxa idinku dhacaya idinkumay dhaceen
maantay haddaynan sacdiye garab istaaginina berri midaan mid ka daran baa idinku dhacaysa. fura dhegihiina, runtu waa run, runta haddaadan ogeyna been baa kuu qarsoon. sacdiye maanta waxa lagu ceyrsanayo waa caruurta iyo haweenka, kufsiga iyo dulmiga ha laga daayo weeye. so waxa weeyaan factigu waa fact. sacdiye ilaahay baa agtiisa wuxuu ka siinayaa difaac, ilaahay baa difaacaya. inta sacdiye dulantayna allah waxaan idinka baryaynaa ee sacdiye beenta ka sheegtay ee eray aysan ku hadlinin keenay baraha bulshada ee nabay qofka nabniishuhu naar waa ka adag yahay ee sacdiye nabay mid bara bulsho ka hadla iyo mid banaanka jooga intiinaba allah waxaan idin weydiinayaa amar degdega inuu idinka soo wada saaro baan allah idin weydiinayaa because allah subxaanahu wa tacaala qofka la dulmo uu heliya ama nin ha ahaado ama naag ha ahaado. intii sacdiye dulantay ama codkooda ku dulantay ama banaanka ka dulantay ama common ku dulantay oo sacdiye dambiga ka galay allah waxaan idin weydiinayaa inay idinka soo baxdo aniga kuwii dambiyada iga galay in badan bay ka soo baxda. in badan baan arkay idinkuna aad u qaylisaan hebeley aad tirahdaan, laakiin anigu markaan arko andho ilaah adaa caadila adaa ii hiiliya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. dadka sacdiye dulmaya anigaa runta idiin sheegaye waqti aan maanta ahayn ayay idinka soo baxaysaa. sacdiye nafsiga aad ka gasheen, beenta aad ka sheegteen, dulmiga aad dulmideen, waxa aad ku faafinaysaan baraha bulshada, kuwa banaanada reemaha uga wata. sacdiye waxa weeyaan wax xun anigu wax u qarsoon ma arag, laakiin wixii banaanka aan ka dhageystay sacdiye kuma arag eray xun oo ay leedahay LGBTQ baan doonayaa. waana maamuliyada waan salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. gabdhow taasaa idin wada sugaysa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.